waxyaaba cajiibka arko waxaa ka mid ah in 7% ka mid ah views-ka helay just 7% ka mid ah ayaa wuxuu soo saaray 44% lacagtaan helay. That means half ku dhawaad lacagtaan helay waxaan ku helay kaliya 7% view-ga aan helay. Haddii aad doonaysid inaad YouTube-ka lacag ka samayso, muuqaalkan waxaan doonayaa inaad idin la wadaago inaad si ogaato dadka ka daawanaya dalka Soomaaliya. Haddii YouTube-kaaga uu yahay YouTube aad target ka dhigtay dad Soomaaliya jooga inay ku daawadaan in uu noqon doono YouTube-ka mid aan lacag badan ka sameynin. Sababta saa u leeyahay waxaan doonayaa inaan tuso report ku saabsan YouTube-ka iyo lacagaha uu bixiyo. Marka haddii dadka ku daawanaya YouTube-ka ka daawanaya ay yihiin dad ka imaanaya dalka Soomaaliya ama dad ka soo daawanaya iyaga Soomaaliya jooga yihiin waxa weeye YouTube-ka khasaaro ku jira oo views kasto aad ka hesho halka wax lacag kuma siinay. Aniga ma ay qof qabiir ku YouTube-ki waxyaabaha maybe waxa laga yaabaa in waxyaabaha qaar qalday laakiin waxaan doonayaa inaan tusiyo report ituso taabsi ah oo mid ka mid ah journalist-ka aniga aan lacagta ka sameeyo online-ka. Marka waxaan doonayaa channel-ka inaad la eegtaan oo marka aad aragtaan lacagta anigu aan ka helo channel-ka iyo views-ka Soomaaliya iga soo galay intee lacag baan ka helay. Marka maadaama Facebook soo geli qormaan kaga leeyahay waxaan dad badan baa igu yiri YouTube-ka Soomaaliya waxa laga helaa laakiin way yarihiin laakiin anu waxaan doonayaa in tuso in zero ee tahay lacagta ama views-ka aan ka helo Soomaaliya iyo lacagta ka soo gashay. Marka qaab loo eega jirto ku ogaan kartid wadan kasta inta qof ka daawatay iyo contribution-ka lacagta ay heshay inta ay qayb ka yihiin wadanka ka soo daawaday. Marka si aan isbarbardhiga u sameeyno waxaan doonayaa in tusiyo analytics-ka 90kii cisho ee u dambeysay lacagta aan ka helo channel-ka iyo Soomaaliya lacagta contribution-ka ku leedahay iyo salaan inta lacag soo gashay intaas baan sameeyay total Soomaaliya marka views-ka ka helay lacagta soo gashay inta la egta report-kii channel-kayga last 90 days so 90 days-kii u dambeeyay report-ka qaybta waxaan joogay YouTube-ka marka analytics-ka tagto ka bacdi marka tagto meesha ku qoran tahay advanced analytics so analytics-kan sida caadiga lama arko waxa u baahan tahay inaad adiga soo saarato so waxaad tagi doontaa analytics-ka advanced-ka ah كبعدين waxaad dooranaysaa qaybta geography-ga kadibna waxaad ka sii dooranaysaa inaad ku sii darto wuxuu ii sheegayaa wadan walbo iyo dadka iga daawada for example iminka wuxuu ku leeyahay Soomaaliya 90 days-kii u dambeysay waxa iga daawatay 462,000 so totalka dadkii daawada waa 891,000 so 462,000 oo kamid ah ama 51% kamid dadkii daawaday waxay iga soo daawadeen Soomaaliya marka waxa ku xiga Soomaaliya Kenya waxa ku xiga United States marka saas bay u sii kala hooseynayaan sida u kala badan yihiin marka hadda lacagta ma arkay yani kaliya views-ka arkay marka si aan u arko lacagta waxaan sameyn doonaa qaybta sare imaanaya kabacdi waxaan dooranayaa meesha ku qoranta secondary analytics kadib waxaan dhigi doonaa more metric kadib waxaan dhahayaa estimated revenue marka wuxuu igu darayaa lacagta sidoo kale waxaan doonayaa inaan ku daro halka oo la CPM-ka waxa laga wadaa marka doonaysa monetization inaa xisaabiso CPM waxa weeye kunkii qof ee ku daawaday intee baad ku helaysaa for example Mareykanka waxa laga yaabaa kunkii qof ee ku daawaday inaa $5 ku heshid waxa laga yaabaa inaa $10 ku heshid so wadan walba CPM-kiisu kala duwan yahay marka wadanka ay waxay ku xiran tahay waxyaabaha ka hadlayso haddii aad financial ka hadlayso haddii aad ka hadlayso waxyaabaha ku saabsan ciyaaraha so any metric walba ama CPM walba uu ka duwan yahay kan kale marka dadka waxa ay soo baxday options badan baa ku soo biiriyay xagan waxa iga soo baxday estimated revenue aan helay 90 days-kii u dambeeyay channel-kayga waxa weeye $182 so 90 days intaas baan helay views-ka helan waxa weeye 891,000 watch time-keena waa 201,000 marka kuwaas ma rabo inaan sii eegno intaan baan doonay xoog inaan saarno halkaan hadda offer system-ka wuxuu dhahayaa Soomaaliya waxa u jeedaa lacagta estimated revenue aan ka helo waxa weeye dash ama waa zero that means wax lacag aan ka helo malaha waxaan iga soo gasho views aan helay 462,000 that means 52% views-kii la daawaday wax lacag kuma helin okay marka waxa kale oo igu xigi doona Kenya so Kenya waxa ay daawatay dad aan aad u badnayn 83,000 ama wax u dhinta wax u dhigan 9.4% oo iga daawat Kenya still wax waan ka helay so CPM-ka Kenya aad buu u yareeyay waa 0.74 $22 ka laakiin Soomaaliya waxba kama helin meesha ugu fiican waxa weeye wax ka helay waa Mareykanka so Mareykanka views-ka ka helay wuxuu ahaa 63,000 ama wuxuu u dhigmay 7% kamid ah waxay ii soo saartay $521 CPM-ka Mareykanka waxa weeye $10 so haddii dadka ku daawanaya Mareykanka imaanayaan waxa weeye chance badan oo fiican baa haysataa marka halkan waxaan doonayaa inaan tusiyo waxyaaba cajiibka arko waxaa ka mid ah in 7% ka mid ah views-ka helay just 7% kamid ah ayaa wuxuu soo saaray 44% lacagtaan helay that means half ku dhawaad lacagtaan helay
waxaan ku helay kaliya 7% view-ga aan helay marka wadamada kale contribution way leeyihiin oo ay si kala yihiin sala Ingiriiska ku xiga asagana 200 baan ka helay waxa ku sii Sweden oo asagana aan ka helay $85 marka wadamada qaar way si kala yihiin laakiinse Soomaaliya waa $0 so dad badan baa igu yiri lacag baa laga helaa yar laakiin aanu ma arag maybe aanay si gaar laga xira laga yaaba wadamada Soomaaliya Ethiopia iyo Djibouti saddexda wadanba waxa lacag kama helin so Soomaaliya 462 oo view baan ka helay oo u dhiganta 52% laakiin se wax lacag oo aan ka helay ma xitaa aan sameeyay in reportka export la Excel aan geeyay kadib aan isku wada dardaray lacagta still lacagta aan helay $182 waa wadamada halkan ku qoran kuwa dash ta lacagtooda ma ahan wax xidhan ah oo contribution ka $182 kuma jiraan that means zero baa iga soo gashay marka waxa doonay reportka in idin la wadaago hadii dad badan ay soo weydiiyay views-kaaga tu Soomaaliya ka imaanaya waxa YouTube-ka ka helis waa zero marka waxa saameyn kula inta badan Soomaaliya dadka jooga haysiis badan ma arkaan ayaga oo dadka ama shirkadaha wadankeena haysiiska ma isticmaalaan sidoo kale YouTube-ka wali uma ogolaanin ba in la isticmaalo haysiiska AdSense-ka in wadanka lagu isticmaalo marka maybe mustaqbalka hadii la fasaxo shirkado badan oo weyn ba isticmaal doona kadib waxa laga yaabaa in lacag laga helo laakiin imika zero way marka hadii aad doonayso YouTube-ka lacag badan ka hesho channel-kaaga ha noqdo channel ku aadan dad Mareykanka jooga ama Europe jooga because iyaga lacag badan baa laga helaa sidoo kale muuqaalka intaan dhameyn waxa doonaynaa idin la wadaago CPM-ka ugu badan ee aan helay that means wadankeeba ugu CPM badan marka si aan ogaado xagga saraan taawanaya saay kala sooci doona so wadanka ugu badan CPM-ka ugu badan waxa weeye Japan so Japan waxaan ka helay CPM $16 laakiin nasiib dar dadkii daawada aad u yaraa oo dad badan iga meesoo taawan xitaa reportka isaga kuma jiro oo $0.3 baan ka helay laakiin dadkii daawada aad u yaro reportka lagu soo diray maybe waxa laga yaabaa inay yihiin dhowr qof marka muuqaalka inta san doonayna idin la wadaago hadii YouTube channel aad doonaysid inaad samaysato targetkaagu ha noqdo wadamada kale ee Soomaaliya hadii aad target ka dhigato waad ku daali doontaa lacag badan ka meelaysid maybe in the future na ka dhigata laga yaabaa target laakiin right now way adag tahay in Soomaaliya dhexdiisa lacag ka hesho marka muuqaalka hadda ka heshay waxaan ka codsanayaa video in like noo saar sida badan u gaaro aad ba u mahadsantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh